انت ليف سي سوتا نفس الوضع عادي يا روكو جرنا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka aad naga dhageysanaysaan waa mad naga daawanaysaan waa Sultaanka TV barnaamijka maanta marti waxaan ugu leeyahay Abdisalaam Khaliif Sanka aye Yunus Ahmed yo marka ma waxaan uga hadlaynaa barnaamijka gameka ugu dambeeya caawa la ciyaari doona World Cup-ka ee Russia lagu qabtay ee Croatia iyo quarter final ka darweey aye waxaa Croatia iyo Russia aye Croatia iyo Russia teamkee soo gudbi kara ayaa la isleeyahay marka sanka ayaan ku bilaabeynaa haye maxaa aqoon u leedahay fikrad ahaanteeda waxaan taageersanahay teamka Croatia aye waxaan rajeynayaa inay meel fiican imaan doonto ama finalka ama semi finalka inay si fiican uga soo bixi doonto aye iyadoo Russia aan meeshaan laga filayn inay imaato laakiin hadda maanta kaalin fiican ka qaadatay inay imaato meeshaan nacam hayo sidoo sanka sheegay baa gamekan waa game oo semi-final lagu gudbayo quarter finalka daliliyo Russia iyo Croatia markii la isku fishay labada teamna Croatia aad u awood badan haye markii loo fiiriyo dhankasta laakiin Russia lagama saari karo gamekii Spain dhashay waa lagama fiina Spain ka badinayso ama 90 minutes la dhaafi doonaan gadaal haye kubadda wax walba ka fiish laga filan karaa baalkii tartanka haye sida kooxo badan ku dhacday waa garan laakiin ayada loo ogaay inuu Russia iyo Croatia isku team isku awoodayeen team ahaan Russia waxa la karaa support oo gurigooda joogaan taas ay faa'iido weyn ku qabaan waxay ciyaarayaan home pressure wax la gurigooda joogaan awoodda gurigooda isticmaalayaan taageerahooda ka daba qaylinayo marka waa awood badan ciyaaraan laga rajaa ما شاء الله marka adiga ahaan sanka ya caaw isleedahay waa support gareynay ama inay badinayso Croatia aad iyo aad u taageeraya Croatia aye inay soo bixayso oo waliba hal iyo eber ku badan doonto aan qiyaasay oo England ka hor imaan doonto England aye adigana yo saas leedahay Croatia yaa soo bixi doona caaw yaa seen la garaaci doona sida loo badinayo horta aniga aaminsanahay Russia inuu laga badinayo aaminsanahay aye ciyaarahantooda laakiin ani waxaan jeclaan lahaa in markino Croatia laga saaro meesha Russia ay soo baxdo oo hum ahaan aad u fiirinayso wadanka lagu hayo semi-final iyo gudba maadaama ay tahay markii ugu horeysay baa taas quarter final soo gaaraan aye waxaan inkastoo tahay football inkastoo tahay la qiyaasi karin jeclaa inay gudbaan hatta finalka si tagaan aye England ku dhacaan semi-finalka kadibna final meesha dheeraan aye qofkii intay qaadaan teamkan aad support iyo sida ay qaadaan waa Russia maadaama Germany taageersan Germany meesha ka baxay hadda marka Russia wataa oo marka inay qaadaan maadaama gurigooda lagu qabto aye mucjisooyinka lagu arkay dhanka footballka ama World Cup-kan hadda kooxihii waaweynaa iyo laacibiintii waa ku daayeen baabuurka baskay raaceen oo home baagooday qaateen marka magac dhabi kartaa dadka baxay oo ugu laacibsan waxaa ka mid ah sida Portugal oo kale aye sida Argentina oo kale lagama filayn inay baxdo aye Brazil oo kale xalay lagama filayn inay baxdo gaariga xalay raaceen gaarar badan raaceen aye mid kale mucjisada kale meesha taala waxay tahay Russia Euro ma ciyaarayso iyadoo halkii aan badin inay baxday aye caawan meesha ay taagan tahay mucjisada ugu weyn ka mid tahay iyadana aye hadda sida ugu weyn ama dadkii tartanka loo saadaalay Germany ama group stage ku hareen markooda ugu horeysay muddo aad ku dhawaad 8 sano group stage ku hareen marka halkaas ay ku soo bilaabato la yaabka aye ku soo bilaabato ku South Korea laba iyo ugu badisay Argentina waa arkaysa waa laga saaray Portugal laga saaray Spain laga saaray adigo Uruguay laga saaray hadda waxa la karaa dadkii la filayo sida group stage kii oo adiga waxa ku heli doonaa quarter final soo dib soo gaari doonaa maanta waxay dheerayaan final in dheeraa u badantahay hadda wax meesha loo soo dhigi karo waa France team clear awood ku soo haray meesha waa France iyo Belgium oo isku dhacayaan hadii loo tii soo bayso loo gamekooda ayaa final ka eebo labadooda gamekooda gamekaas waa adag gamekaas waa in la dhafro waa habeenka taariikh Mondayda insha Allah haduu Ilaahay
marka raashina oo intee ku iloodeen kooxdan England intee ku iloodeen England laftirkeeda looma saadaalin in halkan soo gaarayso laakiin markii loo fiirsho tartamada soo dheeshay iyo tartamada basiim kala soo dheereen isma dhimaat ayda group ahaan wajisi soo gashay groupka ugu fudud soo gashay markii dhankan kala soo gaareen waxay soo gashay waxa aragtaba team gear soo gashay Sweden kamid ah sidii maanta la dheeshay waxa ku jirto Russia ku jirto Croatia la leeyahay waxa wadag meesha ku jiro laakiin Belgium marka fiirsay liiska dhinaca teamka wadada liisa laga wadiyo oo hadda waxa la isleeyahay marka England waa final ta wada take final Afrika tagaysa England aniga soo maalmahay meesha soo gaaraysa marka support-ka taageerayaasha oo hadda sida live-ka noo daawanayo marka idinkana comment hoos ku soo qori kartiin cidda aad taageeraysaan marka ma sha Allah barnaamijkeena xigana waxaan ku falaqay doonaa kulanka adag ee derbiga ah Belgium iyo France ayaan si live ah oga hadli doonaa hadduu Ilaahay